Ibas, ibas, Bruniga aniga na ibas. Ibas, sobas, ibas, kubada aniga na ibas. salaamullaahi calaykum daawadayaal goorma ay taageerayaasha Arsenal ay ka bixi doonaan wadna xanuunka inkastoo ay barbardhac la galeen kooxda Chelsea haddana arrimo badan ayaynu ka calaamadeenay haddii ay tahay markii kugu horeysay fadlan subscribe inoo saar janaalka rukumo gambaleelka la wadaag asxaabtaada Arsenal qaybtii hore ciyaarta waxay soo bandhigeen qayb aad u liidata laguma marsiiyon karo kaarkii casaanka ah ee uu qaatay daafacooda ama gudbaha wax mabartaha ah ee lagu magacaabo David Luiz marka laga yimaado qaladkaasi Chelsea qaybtii hore ciyaarta waxay soo bandhigeen hanaan ciyaareed aad u wanaagsan waliba ku tirsan kubadaha degdega ilaa iyo 9 koorna ayaba qaybtii hore ay ku heleen Arsenal xitaa hal kubad oo agoona kuma aanu laadin goosha kooxdaasi Chelsea arrimaha ugu weyn markaan ka tago arinta kaarka casaanka qaladkii Mustafi goolayo xitaa qalad galay xidiga lagu magacaabo Lacazette ma aqaan sababta Arsenal uu u sii joogo isla markaana macallin Arteta Janis uu u siinayo waxyaabihii ugu weynaa ee Arsenal in qaybtii hore ciyaarta markaasi guud ahaan kubadda laga maamusho isla markaana nasiinada loogu diro halkaasi gool ee rigorada ahaa waxaa u sooba qaladka Mustafa uu sameeyay waxaase kasii daran ka daro dibidal noqday xidiga kale ee lagu magacaabo David Luiz maxaa yeelay hadiiba xidigani lagu magacaabo Mustafa kubadda si qaladan goolaha ugu baasay goolayahana qaldamay banaanka oo degdeg ugu soo baxay David Luiz waxay ahayd inuu iska sugo in goosha la dhalay maxaa yeelay waa laga soo qabsan karaa bedelka uu sameyn lahaa in laacibkaasi uu jabiyo kaarka casaanka tooskana uu qaato taana iyana dhibaato xoogan ay tahay waxay muujinaysaa in laacibkan uu yahay xidig mugudba isla markaana Arsenal haddii ay ku sii tirsanaadaan in badan madax xanuun uu ku dhici doono taageerayaasha kooxda Arsenal qadka dhexe Arsenal isna mid laga xishoodo ayuu ahaa qaybtii hore ee ciyaarta ma jirin xidig kubad sameeya oo markaasi weerarka wax ka bilaaba sidoo kale dhibaatada dhanka daafaca weli Arsenal waa ay haysaa kooxdani waxay u baahan tahay in suuqa kala iibsiga si dhab ay u galaan sidoo kale ma jirin isku xir ciyaartooyda Arsenal taa bedelkeeda Chelsea waxay ahaayeen qaybtii hore kuwa aad u wacan heer ciyaareedka ama hanashada kubadda maamulkeeda boqolkiiba 56 ayay gaarsiiyeen kulankani Hector Bellerin captain ayuu ahaa Chelsea qaybtii hore waxay ku guuleysatay kubad haysashada degdegsiimada kubadda garbaha laga qaado isku xirnaan isku balaarin gudaha garoonka ah marka qadkooda dhaxana aad ayuu u wacnaa marka Jorginho Kante ay wada joogaan qadka kooxda Chelsea dhadhan gaar ah ayuu yeelanayaa waxaan dib ugu laabanayaa xilligii kaarka casaanka ay qaateen David Luiz daqiiqadii 26aad ayuu qaatay goolkana Chelsea daqiiqadii 28aad ayaa la dhaliyay oo rigooro ayuu ahaa Arsenal barbadhaca waxay keeneen xidiga lagu magacaabo Martinelli kaas oo na soo xasuusiyay dhacdadii Gerrard ee Liverpool sanadkii 2017 waqtigaas oo ay kooxdaasi lagu magacaabo Liverpool hogaanka horyaalka ay ku weysay markii uu taraaraxay xidiga lagu magacaabo Gerrard dabcan Martinelli kubad laga soo laaday laga soo fogeeyay goosha kadib koorno ay heshay Chelsea wuxuu sameeyay waa uu soo jiiday xidiga kaartana waa uu dhacay kadib waa uu ka faa'iideystay marka qalad ayaa jiray kadib goolkaasi macalinka Lampard waxa muuqanaysa in bedelka Kante aanu ahayn mid farsamo isla markaana wuxuu u muuqday mid xanaaq uu ka qaaday barbardhaca goolka iyo qaladka ay sameeyeen ciyaartooyda kooxdaasi marka Kante waa lagu xanaaq furtay sidoo kale bedelka Kovacic isagana degdeg ma ahayn maxay le Chelsea waxay ahayd xoogaa in bedelka aanu soo dadejin maxay le iyaga ayaa haystay qaybta hore ciyaarta qaybta labaadna fursada ay abuuriyeen goolaya Arsenal waa u diiday marka taa degdeg ayaa ku jiray aan u soo laabto qaybtii labaad ee ciyaarta Chelsea dabcan qaladanka daafaca ayaan dhihi karaa labadii goolba waa uu ku keenay sidoo kale Arsenal wax iskama bedelin oo tirada 10 ay ahaan laakiin hal arin ayaa isbedeshay kaliya go'aan ayay gaareen oo ah inaysan durbaba isdhiibin Arsenal qaybtii labaad
xoogaa waa ay wacnaayeen, kubadda waa ay soo jiidayeen, waa ay la qaybsanayeen, waxaana sidoo kale sabab ah Chelsea oo iyana dib u goratay. Marka golayaha Chelsea isna wuxuu ahaa mid aan foojignayn, labadii gool ee laga dhaliyay labadaba waxaan dhihi karaa maqana jooga ayuu ahaa. Marka labada koox waxaan ka calaamadeeyey in ciyaartooda ay fiicneed. Marka qaybtii hore iyo qaybtii labaad aan eegno, dhibaato ama musiibo daafac labadaba waa ay sameeyeen. waxaa kaloo ii muuqanaysa in labada tababare khibrad yari ay ku dhacday kulankani. Arsenal qaybtii labaad ee ciyaarta dhanka bedelada xitaa uu sameeyey macalinka waa uu wanaagsanaa. sidoo kale xidiga Martinelli waxaan dhihi karaa xidigii Arsenal ayuu ahaa, maxaa yeelay isaga ayaa nolosha ku soo celiyey kooxdaasi lagu magacaabo Arsenal. Marka waxaan dhihi karaa kulankan wuxuu ahaa kulan iska wacan, qalabaadkiisu dhanka daafaca ay jireen. arrimahaas kaliya ayaan kusoo koobayaa. dabcan taageerayaasha Arsenal idinkana waad mahadsantihiin, qaybta hoose committee-ga kulankan si weyn uga qayb qaata falanqayntiisa. haddii ay tahay markii kugu horeysay fadlan subscribe inoo saar janaalka, rukumo gambaleelka, la wadaag asxaabtaada.